kulan ballaaran ay isugu yimaadeen qurba joogta North America ee ka soo jeeda deegaanka Jeexdin ayaa waxa ay baaq u direen dowlad deegaanka Soomaalida iyo dowladda federaalka Itoobiya. kulankan ay ka soo qayb galeen aqoon-yahanada, odayaasha, haweenka iyo dhalinyarada. dadkii ka hadlay waxa ka mid ahaa Xasan Haye Nuur. anigoo ku hadlaya magaca qurba joogta North America ee ka soo jeeda deegaanka Jeexdin ee degmooyinka Shilaabo, Haarcad, Dhooboweyn, Higlooley iyo Qallaafe oo ah kuwa degan goobta shidaalka laga helay guud ahaan deegaanka Soomaalidu ay degto ilaa xuduudda degmooyinka Feerfeer, Boorcukur, Mustaxiil. waxaan soo jeedinaynaa oo dowladda federaalka Itoobiya iyo deegaanka Soomaalida aan u muujinaynaa inay sida ugu dhaqso badan u xalliyaan cabashooyinka shacabka deegaanka oo aad u soo xoogaysanaysa. number 1 xagga shidaalka in federaalka Itoobiya iyo wasaaradda macdanta iyo gaaska dabiiciga ah ee Itoobiya ay si cadaalad ah u fuliyaan ujeedooyinka iyo waajibaadka ka saaran dhowrista xuquuqda dadka deegaanka iyo duunyadaba, kasbashada aaminaadda dadweynaha, ballaarinta horumarka deegaanada shidaalka laga qodayo si ay u helaan rajooyin sidii dadweynuhu u helaan rajooyinkii ay ka filayeen khayraadka laga helay wadankooda, ilaalinta saxada bii'ada iyo in la aruuriyo lana kaydiyo dadka deegaankaas ku waxyeeloobay, in lala xisaabtamo shirkadaha shidaalka qoda isla markaana ay ku dhaqmaan xeerarka caalamiga ah ee qeexaya xuquuqaha iyo dastuurka shidaalka. xagga horumarka in gurmad degdeg ah oo ku wajahan xagga horumarinta biyaha, ceelasha iyo wadooyinka isku xira deegaanadaas la helo, in laga hormariyo xagga waxbarashada, wax soo saarka beeraha iyo suuqgeynta xoolaha iyo xagga caafimaadka, in la abuuro shaqooyin lana ilaaliyo xuquuqda shaqaaleynta shaqsiga ah ama midda shirkadaha deegaanka. xagga deegaameynta gobolku dhibaatooyin fara badan oo deegaanka ka jirtay wuu xallini karaa, nabadgelyada shidaalkana wuu xallin karaa, nabadgelyada deegaankana wuu xallini karayaa. marka waxaanu codsanaynaa oo aanu aad iyo aad u codsanaynaa dowlad deegaanka iyo dowladda federaalka baanu ka codsanaynaa in gobolkaas naloogu dhawaaqo, dowladda deegaankuna ay codsiga noo gudbiso, dowladda federaalkuna ay noo soo ogolaato. gobolkaasu isaga isku filan, uma baahna kaalmo dowladeed, kaalmana kama raba dowladda. shidaalkiisa iyo waxa uu ka helo iyo canshuurtaas iyada ah baa ku filan. marka miisaaniyad ahaan dowladda wuu ka maarmaa. waxaanu codsanaynaa gobolka iyada ah in dowladda federaalku ay noo
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان كسوق القلياشة الشركة جهدين كومونيتي قرب جوجتا أفرت الدقمو يدوبوين شلابو يقولوا يغلافه كسو دواذا مدشن قروح ذا بدن وحاسي قارة وسلام يا مدحدا ماشا فرددا عقاشة أقويانكا هاوينكا دلين يردا يدمان قيبها برشدا markale aad baad u mahadsantihiin